guryihii ay ku noolaayeen ayay ka doorbideen inay halkan deegaansadaan ayna ka dhistaan aqallo ka samaysan cooshado iyo boco si ay uga badbaadaan dhibicda roobka iyo qabowga dhacaya. waxaa isoo wadi xabado isduldulow yaa isoo wadi. waa kaamka Wacdi Baxnaano oo ku yaala xaafadda If iyo Aakhiro ee ka tirsan degmada Afgooye ee Shabeellaha Hoose. waxa ay halkan hooy u tahay boqolaal qoys kuwaas oo ka soo barakacay deegaanadooda xaalad amni darro awgeed. qalinkana dadkoow dadka lagu bilaabay buugi iyo intay qalinka ununka waaye ma fahmo haysiin. waxaan ka soo kaxay aniga xaafadda marka xaafadda oo ruusa yaan ka soo kaxay. maxaa isoo wadi waxaa isoo wadi xabado isduldulow yaa isoo wadi. waxaan ka soo qaxnay Janaale Wacdi Baxnaan aan joognaa. marka hore baahi qaxayo xabaday waxba waa ka soo qaxnaba. dadka halkan ku nool qaarkood ayaa goobtan ku leh ganacsiyo yaryar si ay u soo saartaan wax ay ku noolaadaan. qaarkood dadka halkan deegaansada waxaa ku adag helitaanka waxa ay quutaan saddexda xilli. ilaahan ka sugaynaa aniga waxaan ka soo barakacay Janaale. Janaale dhibaa iga keenay walaalo buulmadiin. maxaa ka soo qaxay xabado ka soo qaxay rajeenaysa raashin inaan oo la keen. kaamkana u jeedaan waxaa lagu magacaabaa Wacdi Baxnaano wuxuuna ka tirsan yahay xaafadda If iyo Aakhiro degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxaa ku nool boqolaal dadweyne kuwaas oo ka soo barakacay deegaano ka tirsan isla gobolkan iyaga oo sheegay in dhibaatooyin kala duwan oo ay deegaanadooda ku qabeen ay halkan maciin bideen in ay ku noolaadaan. Cumar Boole, Tusma TV, degmada Afgooye, Shabeellaha Hoose.